asalaamu calaykum dhammaantiin saaxiibada sharafta badan. Filimku wuxuu ku bilaamayaa gudaha diyaarad halkaasoo koox ciidamada cirka ah oo uu hogaaminayo sarkaal Rensin ay u duulayaan Jarmalka. Ujeedadoodu waa inay burburiyaan xarun idaacadeed oo Nazi ah oo ku taala kaniisad. Jacob Rosenfeld, mid ka mid ah askarta iyo askari Yahuudi ah, ayaa waxay si walaac leh u eegayaan banaanka diyaaradda, iyagoo dareemaya in hawada ay uga badbaado badan tahay dhulka. Lyle Tibet oo ah shiishahanka kooxda ayaa ku majaajiloonaya Rosenfeld, isagoo leh in safarka badda uu ka ammaan badan yahay duulimaadka. intay askartu iska sheekaysanayaan, Edward Boyce oo ah askari kale ayaa wuxuu u muuqdaa mid walwal qaba. Morton Case oo ah sawir-qaadaha cutubka ayaa u tegaya Corporal Lewis Ford oo ah khabiir ku takhasusay qaraxyada, wuxuuna weydiisanayaa inuu sawir ka qaadi karo. Ford oo fikir ku maqan ayaa u sheegaya Case inuu dib ugu laabto kursigiisa. Markaasaa mid ka mid ah ciidamada wuxuu Boyce weydiisanayaa xanjo. Intuu Boyce soo bixinayo, silsiladiisa ayaa ka soo dhacaysa jeebkiisa. Tibet wuxuu ka faa'iidaysanayaa fursadda suu ugu majaajilaysto, isagoo leh in silsiladda nasiibka aysan waxba ka tari dagaalka. Xiligaas sarkaal Rensin wuxuu ka soo baxayaa qolkiisa suu ugu dambeyn ugu sharaxo kooxda howlgalkooda. Markay u dhowaadaan goobtooda bartilmaameedka, diyaaradda ayaa si xoog leh u ruxmaysa oo dhowr jeer waxaa ku dhacaya rasaasta cadowga. Inkastoo ay diyaaraddu ku guulaysatay inay iska ilaaliso weerarka, xabado ka yimid hoos ayaa dhex maraya kabiinka, taasoo keentay dhimashada dhowr askari oo ka mid ah kooxda. Nalalka diyaaraddu waxay isu bedelayaan casaan, taasoo muujinaysa in askartu u diyaargaroobaan inay boodaan. Isla markay nalalku cagaar noqdaan, diyaaradda dab ayaa qabsanaya. Qaar ka mid ah askartana waxaa laga tuurayaa gadaal, iyagoo ku gubanaya ololka. Inta soo hartay waxay iska tuurayaan diyaaradda ka hor intaysan qarxin. Boyce waxaa qabanaya sarkaalka oo dibadda uga soo tuuraya diyaaradda waqti sax ah. Wuxuu dhex marayaa rasaasta iyo qaraxyada cirka ka socda. Ugu dambeynna wuxuu ku dhacayaa biyaha. Isagoo la halgamaya baarshuudkiisa, wuxuu ugu dambeyn u dabaalanayaa jiinka, wuxuuna bilaabayaa inuu doondoono saaxiibadiisa. Intuu raadinayay, wuxuu la kulmayaa sarkaalka oo ay hareereeyaan askar Jarmal ah oo ku jeesjeesaya. Boyce wuxuu isku diyaarinayaa inuu wax ka qabto, laakiin Ford ayaa ka soo muuqanaya gadaashiisa oo joojinaya, isagoo u sharaxaya in howlgalka dhabta ah uusan ahayn badbaadinta sarkaalkooda, balse uu yahay burburinta xarunta idaacadda. Waxay si ciirsi ah u daawanayaan askarta Jarmalka oo sarkaalkooda tooganaya. Intaas kadib, Boyce iyo Ford waxay sii wadayaan raadintooda kaynta, waxayna la kulmayaan 3 askari oo kale oo kooxdooda ka badbaaday. Markay arkaan inay jiraan askar badbaaday, way nafisayaan, waxayna si degdeg ah u samaysanayaan koox. Iyagoo dhex maraya kaynta, Dawson, mid ka mid ah askarta ayaa si lama filaan ah ugu dul istaagaya miino, taasoo qaraxday oo dishay, halka kuwa kalena ay dhaawacday. Ford wuxuu markaas hagayaa askarta hartay si ay u gaaraan meel ammaan ah. intii ay nasanayeen waxay la kulmayaan haraadiga makhluuq aan la garanayn. Markay fiiriyaan qaab dhismeedkiisa, waxay ka shakinayaan inuu yahay lafaha ay ama dawaco. Isla markiiba askartoo dhami waxay mar qura maqlayaan shanqar agtooda ah, waxaana markaas ka soo muuqanaysa gabar Faransiis ah oo la yiraahdo Chloe Laurent. Markay gabadhu askarta aragto, way ordaysaa, laakiin way qabanayaan. Ford wuxuu weydiisanayaa Boyce oo garanaya afka Faransiiska inuu gabadha ka dhaadhiciyo inay u hagto dhanka kaniisadda. Kooxdu waxay gaarayaan tuulada halkaasoo kaniisadii la beegsanayay ay ku taalo. Chloe waxay u kaxaynaysaa gurigeeda, halkaasoo ay nooshahay walaalkeed ka yar oo 8 jir ah iyo ayeeyadeed. Ford wuxuu u tilmaamayaa Boyce inuu Chloe la joogo inta kooxdooda kale baarayso deegaanka. Chloe waxay isku dayaysaa inay gurigeeda dib ugu laabato, laakiin buuqooda wuxuu soo jiidanayaa deriskeeda oo ah Mrs. Lensner oo u sheegaysa ilaalada Jarmalka in Chloe ay banaanka joogtay xilliga bandowga. Chloe waxay isku dayaysaa inay Boyce ku qariso meel yar inta Jarmalku baarayaan. Kadib markay boorsadeeda hubiyaan, askartu way sii daynayaan. Boyce wuxuu dib uga soo baxayaa goobtiisii qarsoonayd, wuxuuna dib ugu biirayaa kooxdiisa. Markaas Chloe dib ayay u soo waxayna u sheegaysaa askarta in gurigeeda ay hoy ka dhigan karaan. Gudaha waxay la kulmayaan walaalkeed Paul oo hortooda taagan, halka ayeeyadeedna ay qol ku qufacayso. Chloe waxay u xaqiijinaysaa inaysan wax dhibaato ah keeni doonin. Xagga saqafka sare, kooxdu waxay qorshaynaysaa tallaabadooda xigta, iyagoo Chloe ka weydiinaya macluumaadka ku saabsan kaniisadda. Si lama filaan ah, waxay maqlayaan qaylo ka dhacaysa dibadda, waxayna daawanayaan haweenay la tooganayo. Chloe waxay u sharxaysaa in dilalka noocaas ah ay caadi ka noqdeen tuulada tan iyo markii Jarmalku yimaadeen. Waxay sidoo kale u sheegaysaa in waalidkeed iyo dad badan oo aan waxba galabsan ay Jarmalku dileen. Chloe waxay uga digaysaa inaysan halkan sii joogi karin waqti dheer sababo la xiriira baaritaanada joogtada ah, laakiin Ford wuxuu u xaqiijinayaa in kaliya ay u baahan yihiin 4 saacadood si ay u dhammaystiraan howlgalkooda. Ford wuxuu u xilsaarayaa Tibet iyo Case inay banaanka ilaalo ka hayaan, halka Boyce loo dirayo inuu hubiyo ammaanka guriga. Intuu Boyce guriga baarayay, wuxuu la kulmayaa haweenay gubatay oo qol ku qufacaysa, taasoo cabsi gelisay. Chloe waxay markaa u kacaynaysaa inay dhaawiciisa daaweyso, waxayna u sharaxaysaa in eedadeed ay hadalka joojisay kadib markay ka soo laabatay kaniisadda. Intay ka sheekaysanayeen taariikhdooda, askarta Jarmalka ayaa imaanaysa say u baaraan guriga. Markii taliye Jarmal ah Wagner uu soo galo, Ford iyo Boyce waxay isku qarinayaan saqafka sare iyagoo la jooga Paul oo cabsi la gariiraya.
wafner wuxuu isku dayayaa inuu xoog ku maquuniyo Chloe laakiin markay diido wuxuu ugu hanjabayaa inuu Paul u kaxayn doono kaniisadda. intuu wafner hadlayay Paul ayaa si lama filaan ah wuxuu dhulka ugu ridayaa kubadiisa baseballka taasoo shanqar samaysay. wafner wuxuu amrayaa askartiisa inay saqafka sare baaraan laakiin nasiib wanaag Paul wuxuu istaagayaa albaabka kor u gala taasoo ka dhigtay inay u muuqato inuu si caadi ah u ciyaarayo baseball. markaas kadib askartu waxay dib ugu laabanayaan hoos. Chloe iyadoo aad uga xun ugu dambeyn waxay u ogolaanaysaa wafner inuu xadgudub ku sameeyo. Boyce uma adkaysan karo waxa dhacaya sidaas darteed wuu soo fargelinayaa isagoo qorigiisa ku taagaya wafner. Ford markuu arkay inaysan wax kale u furnayn wuxuu caawinayaa Boyce isagoo suuxinaya wafner. waxay ka xirxirayaan gacmaha Fordna wuxuu Boyce ku amrayaa inuu soo hubiyo Tibet iyo Case. Boyce wuxuu u baxayaa banaanka isagoo sii maraya kaynta. markuu u dhawaado kaniisada wuu isqarinayaa markuu arko gaari xambaarsan dad buka oo si xun u bedelmay. Jarmalku waxay dadkaas ku tuurayaan kaynta waxayna qabadsiinayaan dab. Boyce isagoo aragtidaas aad uga naxay ayaa wuxuu sii wadanayaa socodkiisa wuxuuna arkayaa gaari kale. wuxuu isku qarinayaa cawska agagaarka u dhow laakiin si lama filaan ah ayaa eryanaya. isagoo si degdeg ah uga cararaya ayuu fuulayaa gaariga cadowga balse wuxuu ogaanayaa in gaariga ay ka buuxaan meydad askar ah oo keliya. markuu banaanka ka eego wuxuu la argagaxayaa aragtida askarta Jarmalka. gaarigii markuu istaago wuxuu isku qarinayaa meydadka suu u sugo fursad uu kaga baxsado. markuu Boyce ka baxsado gaariga wuxuu ku dhuumanayaa meel dhulka hoostiisa ah oo kaniisada ka tirsan taasoo u eg xabsi. wuxuu maqlayaa dhawaaqyo hoose oo ka imanaya qolal yar. markaas ayuu go'aansanayaa inuu soo baaro. qol mugdi ah ayuu ku arkayaa weel weyn oo dhiig ka buuxo. wuxuu arkayaa jirdad oo ku dhex dhaqdhaqaaqaya bax soo laalaada. markaasuu furayaa wuxuuna helayaa qof si buuxda sayramka ugu dhex qooyay. si dhaqso ah ayuu u soo qabsanayaa irbad meel u dhow taalay kadibna wuu baxsanayaa. intuu sii baarayo Boyce wuxuu maqlayaa qof gargaar dalbanaya. markuu daaha rogo wuxuu helayaa madax aan jir lahayn oo ka baryaya in la caawiyo. isagoo argagaxsan Boyce wuxuu ka tagayaa qolka wuxuuna helayaa Rosenfeld oo sariir ku xiran qolka xiga. wuxuu isku dayayaa inuu furfuro laakiin askarta Jarmalka ayaa markaas soo gelaysa. Boyce wuxuu arkayaa Jarmalka iyagoo meyd askari ku duraya serum kadibna si dhaqso ah ugu tuuraya jirkiisa tunnel. markay askartu baxdo Boyce wuxuu Rosenfeld ka saarayaa irbadii weyneed ee lagu xiray kadibna wuu furfurayaa. labadooduba waxay imaanayaan guriga Chloe. guriga Chloe, Tibet iyo Case horey ayay u yimaadeen waxayna sugayeen Boyce. markay codkiisa maqlaan isagoo gargaar dalbanaya waxay u cararayaan inay caawiyaan. markay hoos yimaadaan waxay la kulmayaan Rosenfeld oo sharaxaya in la qabtay isla markiiba kadib markuu dhulka ku soo degay. Boyce wuxuu isku dayayaa inuu u sharxo tijaabooyinkii uu ku soo arkay kaniisadda laakiin kooxdu si fudud uma fahmayaan. wuxuu markaas Ford tusayaa irbadii uu shaybaarka ka soo qaaday. Ford wuxuu qaadanayaa irbada wuxuuna Wafner weydiinayaa sharaxaad isagoo rajaynaya inuu ka helo jawaabo. si kastaba ha ahaatee Wafner wuu inkirayaa inuu wax ka og yahay. Ford wuxuu sidoo kale weydiinayaa ciidan intee la eg ayaa kaniisadda jooga laakiin Wafner ma bixinayo wax jawaab ah. intay isku diyaarinayaan weerarkooda kaniisadda waxay qorsheynayaan inay Wafner la tagaan. sidaas darteed Case wuxuu u tagayaa si uu u eego Wafner balse Wafner wuxuu iska dhigayaa mid miyir beelay ka hor intaanu si lama filaan ah Case u toogan taasoo sababtay dhaawac halis ah. markay maqlaan xabadaha kooxdu waxay u cararayaan kor say u joojiyaan Wafner. Case oo geeri u dhow ayaa Boyce wuxuu go'aansanayaa inuu irbada ku duro. daqiiqado kadib Case wuu soo kabsanayaa isagoo leh xoog cusub balse wuxuu si lama filaan ah u noqonayaa bahal xun. wuxuu weerarayaa saaxiibadiisii taasoo Ford ku kalifaysa inuu dhowr jeer toogto. Wafner markaas wuxuu sharxayaa in seeramku uu askarta dhimatay u bedeli karo makhluuqyo xunxun oo la mid ah zombies. intuu hadalkaas sheegayo Case ayaa soo toosaya oo mar kale wuxuu isku dayayaa inuu Ford weeraro laakiin Boyce ayaa soo dhexgelaya oo garaacaya Case ilaa uu ka dilo. intii ay qalalaasaha ku jireen Wafner wuxuu ka faa'iideysanayaa fursadda suu u baxsado. Wafner hoos ayuu u degayaa wuxuuna qabsanayaa Paul suu u hubiyo baxsashadiisa. koox askar Jarmal ah ayaa u imaanaya inay caawiyaan Wafner waxayna Paul u qaadanayaan afduub ahaan. inkastoo dhowr jeer la toogtay Wafner wuxuu ku baxsanayaa gaari. Chloe oo si quus ah isugu dayaysa inay badbaadiso walaalkeed waxay bilaabaysaa inay gaariga daba ordo. markuu arko iyadoo murugaysan wuxuu u soo bandhigayaa inuu Chloe ka caawinayo badbaadinta Paul balse Ford wuu diidayaa isagoo adkaynaya in muhiimadda koowaad ay tahay dhamaystirka howlgalkooda. Tibet dabadeed wuxuu soo jeedinayaa inay howlgalkooda iyo badbaadinta Paul isku mar fulin karaan. Ford inkastoo uu shaki ka qabo ugu dambeyn wuu ogolaanayaa qorshaha. dhanka kale Wafner wuxuu gaarayaa shaybaarka isagoo wata Paul wuxuuna si degdeg ah u raadinayaa seeramka. inkastoo Dr. Schmidt oo ah madaxa tijaabooyinka uu isku dayayo inuu joojiyo Wafner wuxuu isku durayaa laba doos oo seeramka ah. Dr. Schmidt wuxuu muujinayaa walaac isagoo xusaya in weligood aysan seeramka ku durin qof nool sidaas darteed aysan waxba ka ogaan karin saameyntiisa. Wafner oo aan ka labalabaynin oo uu wejigiisu qayb ku soo dhaawacmay rasaastii hore wuxuu dadka ku ag sugan tusayaa inuu dib u helay xoogiisa. isla waqtigaas Ford iyo kooxdiisu waxay kala qaybsanayaan shaqooyinkooda waxayna u qorsheynayaan siday kaniisada ku soo geli lahaayeen. Boyce oo yaqaana meelaha ugu wanaagsan ee laga geli karo ayaa hogaaminaya kooxda. waxay xubin walba u xilsaarayaan shaqadiisa kuwaasoo isqaybinaya howlgalka dhexdiisa. say qorshahooda u fuliyaan Chloe waxay si ula kac ah u mashquulinayaan
ilaalinaysaa askarta Jarmalka iyadoo magaalada dhex maraysa say u daba ordaan. Waxay askari Jarmal ah u jiidanaysaa buundo u dhow. Intuu askarigu isku dayayo inuu dhibaateeyo Chloe, kooxda Ford ayaa qabanaysa askariga waxayna ku xirxirayaan gaarigiisa oo ay walxaha qarxa ku xireen. Dabadeedna waxay u dirayaan kaniisadda. Qaraxa wuxuu dhaawacayaa askarta Jarmalka ee joogta albaabka hore. Rosenfeld iyo Tibet waxay weerar toos ah ku qaadayaan Jarmalka say dareenkooda u soo jiitaan, halka Ford, Boyce iyo Chloe ay godadka biyaha hoostooda uga galayaan kaniisadda. Mar alaale markay gudaha u galaan, Chloe oo aad u danaynaysa badbaadinta Paul waxay ka tegaysaa Ford iyo Boyce. Intay jidka marayso waxay bastoolad ku qabanaysaa laba askari oo Jarmal ah, waxayna isku dayaysaa inay ka ogaato halka Paul uu ku sugan yahay. Markay ka weydo wax xog ah, waxay tooganaysaa mid ka mid ah askarta. Dabadeed waxay midka kale ku amraysaa inuu tuso Paul, balse askarigu wuu khiyaamaynayaa isagoo ku xiraya qol uu ku jiro mayd. Dhanka kale, Ford iyo Boyce waxay la wareegayaan qolka isgaarsiinta. Fordna wuxuu diyaarinayaa miinooyin saacadaysan si loo burburiyo xarunta. Chloe markay qolkii gashay, askarigii Jarmalka ahaa ayaa bastoolad la soo baxaya suu u weeraro. Boyce ayaa ka soo gaaraya waqtigii saxda ahaa suu u badbaadiyo Chloe. Intay baxayaan waxay arkayaan zombie oo askarigii Jarmalka ahaa qolkiisa u sii jiidanaya. Iyagoo aan waqti lumin waxay u dhaqaaqayaan dhanka Paul. Boyce wuxuu Chloe u kaxaynayaa qolkii uu horay uga helay Rosenfeld. Markay halkaas gaaraan, Paul wuxuu u qaylinayaa Chloe waxaana si degdeg ah looga furfurayaa xariga. Waxay si degdeg ah uga baxayaan dhismaha, balse Boyce wuxuu sii wadanayaa hawshiisa. Intay Chloe Paul ku hagayso wadada laga baxayo, zombie ayaaba dib u jiidanaya. Paul wuu baxsanayaa isagoo dib ugu laabanaya tuulada, halka Chloe ay dagaal la gelayso zombiga. Inkastoo ay dhowr jeer toogatay, haddana ma dhimanayo, wuuna sii daba soconayaa. Intay cararayso, Chloe waxay helaysaa qoriga dabka tuura. Markuu soo muuqdo waxay gubaysaa zombigii ka hor intaysan ka baxsan kaniisadda. Intay Ford iyo Boyce diyaarinayaan qaraxyada, waxaa soo weeraraya Wagner iyo Dr. Schmidt. Wagner wuxuu awood ku muquuninayaa Ford, halkaasoo Boyce uu ku guulaysanayo inuu dilo Dr. Schmidt. Intuu dagaalku ka socdo wadooyinka, Paul ayaa ku soo dhexdhacaya xabadaha. Markuu arko Paul oo khatar ku jira, Tibet wuxuu isku dayayaa inuu badbaadiyo, balse Jarmalka ayaa tooganaya intuu isku dayayay inuu Paul gaarsiiyo meel ammaan ah. Chloe ayaa soo gaaraysa oo weeraraysa Jarmalka. Ugu dambeynna waxay dib ula midoobaysaa Paul, Tibet iyo Rosenfeld. Dhanka kale, Wagner wuxuu Ford u jiidanayaa shaybaarka, halkaasoo uu bir dheer surayo. Wagner wuxuu u sharaxayaa Ford in seeramka laga sameeyey jirka dadka tuulada si looga soo saaro awoodda dareeraha madow, taasoo qarniyo badan ku qarsoonayd tuulada hoosteeda. Intuu hadlayo, Boyce ayaa soo gelaya qolka wuxuuna rasaas ku furayaa Wagner, taasoo horseedaysa dagaal kulul. Intay Wagner iyo Boyce dagaalamayaan, Ford wuxuu isticmaalayaa xooggiisoo dhan suu isaga saaro birta. Wuxuu isku mudayaa seeramka suu dagaalka uga qayb galo. Labadooduba waxay bilaabayaan dagaal foolka-fool ah. Markuu Ford ogaado inuusan Wagner ka adkaan karin, wuxuu u dhaweynayaa haanta oksijiinta. Boyce wuxuu tooganayaa haantii, taasoo keenaysa qarax xooggan. Markuu Boyce isku dayo inuu Ford ka caawiyo baxsashada, Ford oo garanaya saamaynta seeramka ayaa wuxuu isku xirayaa shaybaarka, wuxuuna Boyce ku amrayaa inuu dhammaystiro howlgalka. Ford dabadeed wuxuu dejinayaa saacadda qaraxda, kaasoo burburinaya shaybaarka. Isagoo raacaya Ford amaradiisa, Boyce wuxuu saacadda qaraxda ku xirxirayaa manaaradda kana soo baxaya kaniisadda ilbiriqsiyo ka hor intaysan qarxin. Wuxuu dib ula midoobayaa Rosenfeld, Tibet, Paul iyo Chloe tuulada. Intaas kadib, Boyce wuxuu la kulmayaa sarkaalka hogaaminaya howlgalka, wuxuuna u sharxayaa in Ford uu sabab u ahaa guusha howlgalkooda. Sarkaalka wuxuu weydiinayaa wararka sheegaya inuu jiro shaybaar qarsoodi ah oo ku yaala kaniisadda, balse Boyce wuu beeninayaa isagoo raacaya taladii Ford. Ugu dambeyn, Boyce wuxuu dib ula midoobayaa kooxdiisa, waxayna isku diyaarinayaan inay guryahooda ku laabtaan, iyagoo howlgalka si rasmi ah u soo gabagabeeyey. Muuqaalku halkan ayuu ku egyahay. Fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena commentiga hoose noogu reeb. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.